الله أكبر. 2003 Ocak Şubat Mart Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma. الله أكبر. itibariyle Ahmet Anadolu'su mücadele geldi de 86 yaşında hayatını kaybeden bu eski başbakanlardan şu an için cenaze namazı. الله أكبر. Esselamu Aleyküm. Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Askeri Camii'nde de cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Başkanı waxaa isbitaalka jaamacadda Ankara University Hospital shalay oo Arbaca ahayd Abriil 4 ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Yildirim Akbulut oo 68 jir ahaa. Yildirim Akbulut waxaa la sheegay inuu muddooyinkii u dambeeyay xanuunsanaa laguna daaweynayay isbitaalka Ankara University Hospital. Waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaare iyo weliba afhayeenka baarlamaanka dalkaasi waxaana uu xildhibaan ahaa ku dhawaad 20 sano laga soo bilaabo 1983 ilaa 2002. Waxa kale oo uu soo noqday wasiirka arrimaha gudaha Turkiga muddadii u dhaxaysay 1984 ilaa 1987 isagoo ka tirsanaa xukuumaddii ra'iisul wasaare Turgut Özal. Yildirim Akbulut waxa uu sanadkii 1980 noqday ra'iisul wasaare isagoo soo dhisay xukuumad waxaana uu sii waday noloshiisa siyaasadeed isagoo sanadkii 1983 noqday aasaasaha iyo gudoomiyaha xisbiga dhulka hooye Anfat Party. markii uu isaga tagay xisbigaasi waxa uu ku biiray xisbi kale oo lagu magacaabo DYP balse waxa uu ku hungoobay tartan uu u galay kursiga baarlamaanka ee magaalada Istanbul sanadkii 1999 waxa mar kale loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga isagoo xilkaasi hayay tan iyo sanadkii 2000. ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Turkiga ee shalay geeriyooday Yildirim Akbulut waxa uu bishii November 15 sanadkii 1935 ku dhashay gobolka Erzincan ee bariga dalka Turkiga waxaana uu ka qalin jabiyay dugsiga sharciga ee jaamacadda Istanbul University Law School waxaana uu ka soo shaqeeyay qarannimo ka hor intuusan siyaasadda ku biirin. ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiga ee geeriyooday Yildirim Akbulut waxa uu ifka kaga tagay 3 gabdhood iyo hooyadooda hore u ahayd xubin ka tirsan maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi The Constitutional Court.